Waaxda Barwaaqo oo kamid ah waaxaha degmada Warta Nabadda ayaa waxaa maanta dhagax dhigay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng.Yariisow iyadoo ay goobjoog ka ahayd Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda mas'uuliyiin kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Mashruucan uu duqa magaalada Muqdisho dhagax dhigay ee lagu dhisayo waaxda Barwaaqo ayaa waxa uu qayb ka yahay mashaariicda ay dowladdu si xamar ku horumarinayso dib u dhiska caasimadda iyadoo dhagax dhiga kadib ay warbaahinta la hadashay Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Seene Maxamuud Warsame Xaabsi. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka sare ee gobolka Banaadir ee suurta galiyay shaqadan quruxda badan inay maanta dadka halkan ku dhaqan oo intaas oo sano ku noolaay oo duruufta ka jirto iyo adeeg ay u baahan yihiin fogaanteeda ee xarunta degmada mararka qaar soo gaari karin ma xarunta gobolka adeegyada qaar looga baahnaa in ay maanta ka saacideeyeen shacabkii in meel loogu adeegi karo oo qurux badan oo dawladii ay fariisan karto shacabkeedana ugu imaan karo in laga hirgelinayo. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng.Yariisow ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu xoojin doono barnaamijyada lagu horumarinayo dib u dhiska caasimadda. waa ujeedaan maanta dhagax dhigan waaxdii Barwaaqo ee degmada Warta Nabadda oo aan dib loo dhisayo si casri ahna loo hagaajinayo. Xaruntan waa xaruntii bulshada loogu adeegayo. annaga waxaa naga go'an goobaha danta guud ee bulshada loogu adeegayo inay noqdaan goobo bulshada u adeega, goobo runtii bulshadu ka heli karto adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan. muddo ayaan soo wadnay daadejinta maamulka iyo adeegyada. haddana u jeedaan awal waxaan dhisaynay degmooyinka xarumahoodii, hadda waxaan u gudubnay waaxyihii. wad arkaysaan waaxdii Oktoobar ee degmada Waaberina soo dhagax dhignay, maantana halkan joogno. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay si maamulka gobolkooda kugu adeego waxa loo baahan yahay in ay kaalintiina ka qaadataan.